degmada wadajir ee gobolka Banaadir waa degmo kaabiga ku haysa xeebta dheer ee magaalada Muqdisho waana halka ay ku yaalaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde cisbitaalka Banaadir iyo Madiina Hospital. shacabka degmada wadajir oo kaashanaya maamulkooda degmada ayaa isbedel weyn waxa ay ka sameeyeen wadooyinka ganacsiga arrimaha bulshada waana mid ka mid ah horumarka ay gaartay degmada wadajir ee gobolka Banaadir. meelaha ugu badan ee shacabka degmada iyo maamulka ay waxay ka qabteen lana dhihi karo dadaal xoogan ayay ku soo bixiyeen waxa kamid ah furista wadooyin badan oo dad shacab ah ay dhisteen dib u soo celinta nadaafadii degmada oo wax badan laga qabtay gargaar si siman loo gaarsiiyay degmada iyo waliba dadka danyarta ah ee ku nool iyo arrimaha ciyaaraha iyo fanka iyaduna degmadu ay leedahay koox qaabilsan hidaha iyo dhaqanka gudoomiyaha degmada wadajir Axmed Cabdulle Afrax ayaa iga warbixiyay wadooyinka iyo waliba qaabkii ay u fureen halkaan oo kale waa xaafada ahayd oo dadka obsibka soo galeen meeshan guriga laga dhisay waa laga saaray halkaan oo kale bacaadan baabuurta mari karina ahayd way go'aneed marka waxaan ku guuleysanay inaan furno oo dadkii degnaana aan ka rarno almost waxay ahayd dad meel kala degan oo iska kiristen ka saaciiday markii wadada inay dhiso waxaan naga saaciiday bishaas Turkiga ayaa naga saaciiday iyo dadka deegaanka orantii muxuu ahaa hawsha ugu horeysa odayaasha deegaanka galeen guddi iska soo saaray guddi maamulka aan ku darnay shaqadaana hirgashay marka maanta inay meel baabuurta mari karto halka laamiyad u jeedo hadii uu xirmo problemka qabo hadii meeshaas baabuur dhibaato ku gaarto uu xirmo eewna hal sada ahayd meel la kala marmaleen boorka uu laabanay wuxuu ka soo wareeganay area-dan dhan oo basib waa marka obsibkan uu ka soo kash meel ka shisheys soo samarjin marka hadda waxa way inta boorka doorba intuu mara doorba xaq mara marka waxa way gawaarida noqotay iyo farsada gawaarida noqotay bulshada u noqotay area-dan dhan hadda inta hadda meesha taagana dadaan ka celishay iyaga dhisaro wadada dhexdeeda meesha iyaga dhisaro maxaa jira inta dhan xirnay haddii xaq xirneed oo meeshaasna xirneed halkaan dad jingada la yimid ayaan ka celiyay inay dhistaan haddii inta la dhisto xagga la dhiso ugu dambeyn meesha dhan waxay noqonaysaa marka waxaan ku fikirnaa inaan wada furno marka waa ku guuleysan in wadada furnato inta badan wadooyinka degmada ayaa ah kuwa laami la saaray gawaarida iyo shacabkana si nabadgelyo ku dheehan ay u isticmaalayaan dhismaha wadooyinkaasna waxa ay suura gelisay in degmada laga hirgeliyo laba warshadooda mid waa midaan oo samaysa gaaska halka warshada kalena ay samayso dibna ay u hagaajiso caagadaha qashinka lagu daray iyadoona ka dhigaysa alaab la isticmaalo dhammaan qalabka muqaawada kan oo macnaha لأنه إنه عبّيها من كان معناه هو يوقف شوية. أوكي أنتظر مركز لك عشان بعدي واحد من السكوت هرشوا أو معنا كنت بالباص كذا كمبسترك واحد من هرشوا كبعدي وحالة دار ماشى نظارة كده مركز دار كبعدي هم كانوا هم صنوع معنا هم هيقعد كنت كيلو غدا هم هيقعد حوالي لباتل أنا هيقعد أتمنى هم هيقعد ليس روسيسكو كله. هو بحب أنت برنامج كده وقولي لك شو أنت هذا سنة كنت كيلو واحد مركز سنة أنت اللي بعد سنة جلاله هذا برنامج سنة حب هاي اللي قرش معنا برنامج قولي ومعنا كنت كيلو برنامج شو كده بقى وحين إنه معنا شغال معنا أوتومات هو مشكلة شغال معنا معنا وشو كانوا عملوا أنت لو سوق هذا جلاس عملوا شو صار معنا أوكي غلب قسمه وشغال بركة نوعنا باش سوق هي 60 هذا سوق هذه معامل kala duwan oo magaalada ka soo baxay hoteelada guryaha adiga boqolkiiba 20 ama isticmaalaan laakiin badana boqolkiiba 100 haysan hoteelada waxa isticmaalaya hay'adaha caalamiga
sida Turkiga oo kaleeta warshadan ku taal degmada wadajir bal waxay qabad wax iga sheeg horta warshada magaceeda waxaa la yiraahdaa Barwaaqo Plastic Factory nooceedana waa nooc oo recycling oo waxay shiidaa caagagana waa noocaas waxa loo yaqaan recycling caagii oo duugoobay oo qashinka ahaa in maxay ahaydey laga faa'iideysto oo maxay ahaydey dadka masaakiinta ah oo maxay ahaydey aan shaqada haysan inay soo aruursadaan oo maxay ahaydey aan lacag aan ka siino kadib aan process aan gelino oo aan ka dhigno wax oo lagu wax oo dadka wax kala sii noqon karo mise caag laga sii dhigi karo waaye oo maxay ahaydey waxaan ka soo saarnaa material sidii hore u ahaan jiray ayaan ka dhigaynaa ka war marka yaa idinka iibsada alaabta waxaa naga iibsadaa hadda warshad kala jirto kulley oo ayadan la yiraahdo Som Plastic oo ku taalo magaalada Muqdisho ku taalo oo caagaga sameeyso hurwaa ku taalo caagaga sameeyso taas waa naga iibsataa oo nooc BBL ay naga iibsataa noocyada kale oo hadda oo noocan kale u jeedaan hadda maxay HDB allaha asigana maxay ahaydey waxaan u dhoofinaa hadda dibadaan u dhoofinaa hadda oo maxay ahaydey hadda baaburkan hadda meeshan raran waxaa loo wadaa maxay ahaydey dekedaan u wadnaa marka waa saas waa dibadda iyo gudaha labadaba waa ku iibinaa maamulka degmada wadajir bal gacan nooceedii ka siiyay in warshada ay hirgasho maamulka tasiilaad badan ay noo fadiyeen maamulka maxay ahaydey hadda baabuurta alaabta noo keento wax oo hadda oo service badan ay noo qabteen oo maxay ahaydey wax hadda oo qashashaad iyo oo na soo gaaray iyo waxaas ma lahan maxay ahaydey hadda maamulkan aad isku wanaagsanahay wixii oo aan ugu baahnana maxay ahaydey si dhow ayaan ugu helnaa oo aad isu maqalnaha waxbarashada ayaa ah mid si habsami leh u socota ardaydana waxay yihiin kuwa xaadiraya iskuulada qaar ka mid ah iskuuladani waxaa dhigta caruur yaryar ah waxaana ka mid ah iskuulada Anadol Ali Hussein iyo waliba iskuulka Djibouti maamulka degmada ayaa qaar ka mid ah caruurtaasi geeyay iskuulada iyaguna si lacag la'aan ah wax ku barta iskuulka Ali Hussein waxaa xilligani wax ku baranaya gabdho barta farsamooyin kala gedisan انت لما تسمي لكن قبل انت سواء قال جيب سواء بحضر كلام ولو والله ولا سواء ما شاء الله maadooyinkan way jiraan sida wax loo talo dharka shiliska iyo farshaxan kale marka hadda ilaan saarka oo kale iyo waxaad ka sheegtay tuliinkiyo imis bila baranaysa hadda hal bil aan dhiganaya hadda masaar kartaa ilanka xoogaha guriga ilmaha ku daya waa sii jeclaa inaan horumar sii gaaro haye buugan iyo qalinkan hadda maxaa waa buugi aan ku baranaya sida cilaanka u saaro sida u saar la buuga aan ku baranaya marka hore kadib waa isku dayaya sida guriga ilmaha iyo dadka iyo qofkii raba ku fiirsana haye magacaaga sheeg Maryam Mukhtaar Maxamed haye Maryam maxaa baranaysaa cilaan saar iyo xarqaan iyo cunto karin hadda maxaad cilaankan asaartay ma ada sawirkan ma adeegaya ma soo fudud yahay qaabka cilaanka loo saaro koodii waa adeegaya laakiin kadib waa la qabsanay magacaaga sheeg Faiz Maxamed haye hadda maxaa samaynaysaa hadda waxaan sameynaa geedka guriyaasha lagu sharxo imisa baranaysaa dekan wax badan ayaa suubi 5 bil ah dhiganay ma adeegaya ma soo fudud yahay inta ka baranayso hadii barat mar waa fudud yahay hadii barat waa gartay hadda waxa sawirayso marka maxaa ula jeedaa hadda waxa ii muuqda xidig iyo waxa ii muuqda iyo waxa ii muuqda iyo kalarka loo bluega waxa la wada calanka Soomaaliya wax kale aad qabato ma jira shaqooyinka wax farsamo kale lagu baray cilaan saar si koofid loo talo harqaanka cunto karis waana la baraa kulli waa la baraa kada buugan waxa ku sawiran cilaan ku sawiran ana sawiray hadda qofka dumarku ma saari kartaa cilaanka in badan soo saaray imisa nooca saari kartaa laba nooc maxay kaliin
bacweyne iyo qaliij labadooda yaa adag marka la saarayo bacweynaha adag muxuu ku adag yahay bacweynaha waa weyn yahay saacamal waa qaliijkan waa yar yahay marka gabdhaha Soomaaliyeed kee aad u jecel yihiin ay saartaan bacweynaha. He is playing tricks on you. It is still early, but don't go back to sleep. Get ready early so that you attend the church ceremony. Since you told me that you want to see the rest of my birthday party, she advised. Within minutes, it was ready. Uncle Chris drove us in his car. The church where we joined the other bridesmaids. I had thought I was smart, but I saw other people in the church. It was amazing. Everyone was looking spectacular. The bride, my aunt, was looking gorgeous and white. The bridegroom was very charming. He was dressed up in black suit, white shirt, and black bow tie. After the church ceremony, the wedding received, he was held in the school compound. The advance at the reach caused a lot of excitement. The parents of the couple, friends of college, and invited guests gave speeches. When the wedding cake was cut, everyone applauded with excitement. Baking the cake has done expand as the master ceremonies expand. Almost every who had attended the ceremony was taste the cake, and we all agreed it was fun. magacaaga sheeg waan Nasteex haye Nasteex iskuulka Anadol maxaa ka bartaa English social science Somali and Arabic tarbiyo haye ka waran goorma soo gashay galaaskana haye imisa ka baxdaa 6 saac markii la aadaamayo maadooyinka la dhigo maxaa ugu jeceshaa English haye magacaaga sheeg Saudo Saudo maxaa lagu diraa Maxamed Ahmed Bere haye iskuulka Anadol degmada ku yaal ma taqaanaa may degmada Wadajir ma taqaanaa haye maxaad ka barataa halkan English Somali Arabic tarbiya math and haye ka waran Soomaaliga see u taqaanaa waxay raaksa xagee ka imaatay Ingiriiska haye imisa sano inta joogtaa 2 sano haye heesta calanka ma taqaanaa maya heesta calanka Soomaaliya ma taqaanid فراشة الحقل تيري في كل روض نطير سبحان رب البرايا حباك لون الزهور فصرت آية حسن صنع العلي القدير فراشة الحقل رفي على الربا لا تكفي خفيفة الظل مرة كالطيف يسري بلطف أو نجمة في سحاب تبدي المحيا وتخفي يا طفل دعاها طريقة سعيدة في العديقة عذر الربيع دعاها إلى القصون الوريقة لها عروش أعدت من الورود الأنيقة. degmada Wadajir waxa ay leedahay xeeb baaxad weyn oo aad u qurux badan. shacabka degmada waa kuwa u damaasha taga xeebta xilliyada fasaxa. maamulka degmada ayaa ganacsatada ugu baaqay in xeebtani ay u furan tahay cid walba oo doonaysa maalgashi inay ku samaysato. bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah marka ugu horeysa ku soo dhawaad idinka laftigeena xeebta dheer ee degmada Wadajir runtii waa xeebta uu Ilaahay siiyay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta degmada Wadajir ku aadan oo ah runtii qayb aad iyo aad qurux badan muxuu ahaa laga sameeysan karo businessyada kala duwan iyo ganacsiga kala duwan laga sameeysan karo waxa waaye meel aad iyo aad u haboon in wax laga sameeysto waxa waaye waxa marka xeebtan quruxda badan oo runtii natural diyaar u ah in laga faa'iideysto amaan ahaan aad iyo aad loo diyaariyo oo runtii amaankeeda ku tilmaami karno 100% in laga faa'iideysto diyaar u ah waxa lagu soo dhaweynayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wax maal gashado iyo dhammaan inta wax maal gashataba inay xeebta quruxda badan ay hoteeladooda ka sameeysan karaan maqaayadooda ka sameeysan karaan meelo dalxiis ay ka sameeysan karaan
marka waa beach qurux badan oo goob dalxiis laga samaysan karo gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa ammaanku haddana aad iyo aad ayuu u adag yahay cid allaale cid meeshan ka samaysanayso mashruucyadeeda kala duwan si gaar ah ayaan muxuu ula shaqaynaynaa oo ammaankooda u sugaynaa waa runtii waa qayb muxuu ahaa kamid ah xeebta dheer ee degmada Wadajir oo u diyaar ah markaad fiiriso carradeeda iyo muxuu ahaa si u diyaarsantaaba aad isleedahay muxuu ahaa weli haddii ku baraarugi lahay ogaa lahaayeen ganacsatadu mar hore ay imaan lahaayeen marka dad badan oo dabcan naga soo codsaday ama warbixin naga soo weydiiyana way jiraan waxaan rajaynaynaa marka xilliyada soo socdo in wax weyn iska bedeli doonaan oo arki doona meeshaan hotel ku yaalaan meeshaan oo ganacsi kala duwan oo ka socdo meeshaan oo muxuu ahay dalxiis kala duwan loo soo aaday hadii la yiraahdo anagana karaankeena iyo dhinacan kaga aadana aad iyo aad ayaan muxuu uga qayb qaadan doonaa hadii la yiraahdo marka waa dhulka dheer ee quruxda badan ee muxuu ahaa siyaabo kala duwan looga faa'iideysan karo aad u maasanta degmada Wadajir waa degmo ay ka jirto kala dambeyn waxaana ku yaala saldhig ciidan oo qaada dacwadaha kala gedisan ee ka dhaca gudaha degmada isbitaalada Banaadir iyo waliba Madiina Hospital marka laga soo tago degmadu waxa ay leedahay isbitaal ay ka baxday hay'adda MSF kaasoo lagu magacaabo Wadajir Hospital xilligan isbitaalkani waa mid haawanaya isagoon u dhameystiran agabkiisa Axmed Cabdulle Afrax waa gudoomiyaha degmada Wadajir halkan waa isbitaal dhul danguud ahaa oo runtii bulshada markii dambe isbitaal looga furay oo ay gacanta ku hay jirtay MSF Spain muddo markuu u shaqeynayana MSF ay wadanka ka baxday dib ayay u soo laabatay bulshada shacabka shaqadii uu hayay wayna muxuu ahay way waayeen hawsha uu hay jiray idan markaan anu meesha imaado waxaan isku dayay in haddana dib loo bilaabo hase ahaatee way ii suurtagali weyday oo haddii aan siinay inay shaqadii qabataan ugu igmadnay way mar kale haddana ku guuldareysatay inay hawsha wado marka isbitaalkii oo sidaa u diyaarsan oo sirrihiisu ay yaalaan oo qalabkiisu u yaallo daawadiisa xataa ay taallo in badan oo facilitieski kala duwan ay diyaar ku yihiin ayaa muddo inan muxuu ahay hirgalo oo shaqeeyo ay noo suurtagali laadahay marka waxaan rabaa inaan u jeediyo baaq hay-adka caafimaadka muxuu ahay barnaamijyada caafimaadka fangareeyo inay isbitaalkan ay ummadda u furaan oo runtii baahi weyn ay u qabaan bulshada reer Wadajir sida ogtiin isbitaal waaweyn ku yaalo dabcan oo isbitaal Madiina ilaa isbitaal Banaadir way ku yaalaan hase ahaatee dhinacii u badan yihiin markii laga soo bilaabo Cement Petrolka ilaa ummadda Jasiira ka timaaday ka saxaga ilaa dhanaan ka timaado isbitaalku ugu soo horeeyo oo yimaadaan waxa waaye isbitaal Madiina ay yimaadaan marka in meelaha dhexe isbitaal laga helo aad u wanaagsanaa lahayd isbitaalkan oo u diyaar marka inuu ummaddu shaqeeyo oo dhulkiisa shakhsi uusan lahayn oo muxuu ay tahay waaxdii General Daawud meesha ay ku oli jirtay dhisan qalabaysan kaliya oo muxuu in la hirgeliyo rabo ayaa muxuu ahay aan shaqeynin marka baaqaas ayaan jeclaa inaan jeedo aad koox fanka qaabilsan iyo ubaxa ayay leedahay degmada kuwaasoo heeso wadani ah soo bandhiga xiliyada ay degmadu ay munaasabadaha ay ka jiraan
daawadayaal guud ahaan barnaamijka muuqaalka bulshada oo toddobaad walba xiliyadan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaana barnaamijka inuu kaga hadlaynay isbeddelka iyo weliba horumarka iyo ganacsiga ka jira degmada Wadajir ee ka mid ah 17 degmo ee caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho barnaamijka waxaa idila socodsiinayay anigoo Salmaan Jamaal Saciida dhanka farsamada iyo kaamiradana waxaa qaabeynayay Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac Maqosle intaana barnaamij kale mid ku kulmayno waa Salmaan iyo bahda muuqaalka bulshada oo idinkaga tagayo sidaas iyo nabadgelyo iyo horumar wanaagsan